السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواذا channel كي شاكي عانو ما انتو حان إذا أخرنا يا شيء كذا اللي هذا سنو وايت. alright بري waxaa jiri boqor iyo boqorad waxay ahaayeen dad aad iyo aad u fiican oo dadka boqortooyada degan oo dhan ay jeclaayeen waaye kadib waxay dhaleen gabar yar gabadhaas oo ahayd cunug yar oo aad u qurux badan oo jirkeedu aad u cad yahay sida barafka kale u cad yahay timaheeda aad u madmadow yihiin oo dhaldhalaalaya cunug yar oo qurxan ahayd marka xogaay markay soo weynaato dadka dhan arkeen soo cadayso ugu qurux badan waxay u bixiyeen waxay ku neenaaseen Snow White oo macnaheedu tahay gabadhii jirkeedu u cadaa sida barafka waaye kadib boqoradii way jiratay oo waa dhimatay boqorkiina xoogaa yar kadib naag kale u aroosay naagtu waxay ahayd naag aad u qurux badan laakiin naag xun ah oo xaasidad ah oo masirri ah oo haddana sixir ka taqaana boqoradaas cusub waxay lahayd muraayad sixireed oo ay subax walba intay hor istaagto ay hal su'aal weydiin jirtay halkaas su'aalna ay ahayd muraayadee darbiga saaranee dadka adduunka jooga oo dhan yaa u qurux badan muraayadii sixir marka waxay baari jirtay dadka adduunka ku nool oo dhan isla waqtigaas markaasay waxay u sheegi jirtay waxay ula soo noqon jirtay hal jawaab oo ah boqoraday adaa dadka ugu qurux badan waqti kadib gabadhii yareyd oo Snow White ahayd way soo weynaatay maalinba maalinta ka dambeysa way sii qurux badnaanaysay marka subaxyada ka mid ah markay boqoradii ay halkeedii su'aal ay muraayada la hortimid ay ku tiri muraayadee darbiga saaranay dadka adduunka jiro dhan yaa ugu qurux badan muraayadii waxay ugu jawaabtay boqoraday adigu aad baad u qurux badan tahay laakiin Snow White akaasi qurux badan boqoradii maseereeda ahayd way xanaaqday oo waa maseertay oo furkay tuuratay way qaylisay waxay tiri saansi soconaysa ma aha waxay u yeertay marka nin kamid ah askarteeda nin kamid ah markaas waxay ku tiri gabadhaas Snow White ah wajigeeda martaba inaan arki marabo qaad wad durduurka gee ku soo dil ninkii askariga ahaa naagtii boqorada ahayd hadalkeedu yeelay uu wada gabadha yar Snow White ahayd durduurka markuu geeyay uu ka naxay qalbigiisu wuxuu siin waayay inuu gabadhaas yar dilo markaas wuxuu ku yiri Snow White meeshan ka carar aniga waxa la igu ka soo dir inaan ku dilo naagtaas maxay ahayd boqoradaas cusub inay ku dasheertay carar mar dambe yaan lagu arkin Snow White ayadoo naxsan oo qaracansan oo ooyeysa ay meesha ka carartay oo durduurka si fiican u sii gashay si ordaysa markii habeenkii ay noqotay ay waxay aragtay meel guri yar oo ku dhex yaala durduurka gurigii u dhawaatay tartiib baakay ka garaacday markuu qofka furi waayay shanqarna maqli weyd waxay istiriimada qof ma joogo waa iska dhex gashay markay dhex gashay waxay aragtay miis yar oo 7 kursi oo yar ay saas kor ugu heeraarsan yihiin waa sii gudubtay guriga kore u sii aaday kor markay aaday waxay aragtay qol weyn oo ay yaalaan 7 sariir oo yar oo saa isku daba taxan mar alaale marka sariirihii aragtay waxay soo xasuustay daalkii haay maanta dhan waa soo ordaysay ilaa habeenkii marka sariir yar intay saa ugu seexatay ku gamaaday mar alaale markay gamaaday yaa cabaar kadib ay soo sastay markay indhaha kala qaaday waxay aragtay 7 nin oo ciidamo gaagaaban ah oo dul taagan oo isku naxday kore u soo fariisatay Snow White indhaha tirtirtay markaas ay tiri waradoo yaa tihiin mid ka mid ah 7daas nin oo gaagaaban wuxuu ku yiri waxaan nahay dadka meesha deganaa waxaan ka shaqeynaa meesha dhuxusha laga soo saaro adigu yaa tahay anigu waxaan ahay Snow White ayay tiri Snow White kadibna waxay uga sheekaysay sheekadii naxdinta badnayd iyo islaantii aabaheed qabay oo boqorada ahayd say uga soo ceersatay meesha ninkaa ku tiri u dil iyo marka say sheekada u dhageysanayeen nimankii 7 nin oo gaagaabnaa waxay dhaheen okay aad uga naxin gabadha miskiinta ah iyo sheekada markaas waxay dhaheen waa nala joogi kartaa laakiin waa inaad adiga guriga noo hagaajisaa alaabta noo dhaqdaa cuntada noo karisaa okay ay tiri marka waxay dhahay hadda intaas noo samaysa annagana gurigeena joogi kartaa waan ku difaacaynaa aad ay ugu farxsan waxay tiri okay shaqadii hore ka bilowday cunto karis iyo guri hagaajiska iyo bilowday marka subax markay nimankaas baxayaan oo shaqada aadayaan waxay ku dhihi jireen Snow White qof aadan garanaynin albaabka ka furin qof aadan garanaynin gurigiisa soo gelin ayadoo subax waxay ku dhihi jirtay okay qofaan garanay baaka ma fula qofaan garanaynin guriga ma soo galay marka subaxyada kamid ah naagtii boqoradii amraydeeda soo hor istaagtay
su-aasheeday weydiisay muraayadee darbiga saaran ee dadka adduunka joogo dhan yaa ugu qurux badan muraayadii sideedii adduunka dhan usoo dulmeertay muraayadii sixir markaasi waxay ku tiri boqoraday adigu waad ogtahay aad iyo aad inaad u qurux badan tahay laakiin waxaa jira qofkaa qurux badan oo weli nool magaceeduna waa Snow White waxay degan tahay duurduurka waxay la degan tahay 7 nin oo gaagaaban oo guri saasay degan tahay boqoradu waxana wada hadana maxaa tiri Snow White weli waa nooshahay sheekada ma soconayso isla markii soo baxday meel yar oo waxay lahayd qol yar oo sixirkeeda in ay ku maxaa la dhahaa ay ku haysatay qolkaas mar alaala markay soo gasho qofka ay runta tahay noqonaysa markaas ayada run waxay u ahayd naag qumaya ah oo aan qurux badnayn marka sixirka inta isku soo taabatay wax walba soo bixi jirtay dadka dhan waxay u maleyn jireen naag qurux badan marka laakiin qolkaas gasho waxay noqon jirtay qofkeeda runta ahaa oo maxaa la dhahaa oo qumayo aad u falxun ah qolka markay soo gashay waxay sameysay sun ay haysatay isku dardartay suntii soo qaaday waxay ku talaashay bahal yar oo tufaax ah oo qurux badan oo bisayl oo macaan u ego maxay ahayd gaduudan oo kaal iska aragay sixir maxaa la dhahaa sixirkii iyo suntii ay ku talaashay markaas haddana waxay iska soo dhigtay naag duq ah dhar urdufay soo qaadatay way soo baxday ayadoo raadinaysa Snow White si u soo socotay markay duurduurkii timid waxay aragtay guri yar ka ahay u soo dhawaatay daaqadii ka soo fiirisay waxay aragtay Snow White meesha ku dhex jirta kaligeed inay tahay way ogaatay markaas waxay iska soo dhigtay naag maskiinaha albaabka soo gargaraacday miya gadanaysaa tufaaxaanan gadaayay qoftaa maskiinta oo duqda ahay Snow White way ka naxday naagta waxay tiri okay marka tufaaxii u dhiibtay markii u dhiibtay waxay tiri maanday maad goosatid okay ay tiri maxaa la Snow White way goosatay isla markii afkeeda gashatay markii afka gashatay tufaaxii Snow White isla markii gees u dhacday waa suuxday mar allaale markay suuxday boqoradu waxay u maleysay inay dhimatay markaas ayadoo qoslaysa meesha ka tagtay gurigeeday tagtay waxay hor istaagtay muraayadii haddana su-aasheeda weydiisay muraayadee darbiga saaranay dadka adduunka joogo dhan yaa u qurux badan muraayadii waxay ku tiri boqoradii adaa u qurux badan dadka adduunka joogo idin habeenkii marka la gaaray oo 7 nin oo gaagaabna ay gurigooda kusoo noqdeen waxay arkeen Snow White inaysan joogin guriga way raadeen jikadii soo galay markaas waxay arkay iyadoo dhulka taala markaasay taataabteen way ogaadeen inaysan dhimanin ee tahay qof suuxsan way soo qaadeen ayagoo aad uga naxsan oo isla maxaa sameeyeen oo aqoon waxay gabadhan ku caawiyaan ay soo qaadeen sariir box oo ah maxaa dhala ah ee sariir qurux badan oo sameeyay meeshii dhex galiyeen habeen iyo maalin way ilaalin jireen oo way fiirin jireen waa la joogi jireen maalmaha kamid ayagoo sidii u fadhiya meel oo Snow White sariirteeda dhalada ahayd saa ugu dul fadhiya oo naxsan waxa soo meesha waxa ka soo baxay duurduurka wiil yar oo qurux badan oo far saaran wiilkiisu u soo socday wuu imaaday markaasuu yiri markaas wuxuu arkay gabadhii oo dhalada ku dhex jirta oo quruxda ka badan markaasuu gabadhii iska jeclaaday ayagoo weydiiyay sheekadii war gabadhan maxaa ku dhacay ma naqaan wax ku dhacay ayadoo subax fiican ka tagnay galowga markaan soo noqonay saanay ahayd naag saas ahayna ka soo cararaysay marka waxaan u maleynaa naagtina waxaas ku sameysay markaasuu wuxuu yiri okay ana waxaan ka imaaday boqortooyo kale oo halkeer ah wiilkii boqorka dhalaan ahay haddaa ii dhiibtiin gabadhan oo qaado oo aan wadankayga geeyo oo la soo daaweeyay maxaa ka qabtiin nimanku waa farxeen waxay dhahaan waxba kama qabno markaas waxay damcayeen inay dhalada ka soo bixiyaan Snow White marka ay dhaqdhaqaajiyeen sa u soo bixiyeen afkeeda waxa ka soo dhacay tufaaxii ay goosato sunta lahaa mar allaale markuu tufaaxii ka soo baxay afkeeda way qufacay bilowday way soo kacdeen dhahay kala furtay sheekadii loo sheegay markaas ayadan u sheegtay naag duqa inay u timid oo tufaaxaas ay siisay meeshii wiilkii boqortooyada kale ka yimid intuu Snow White u tagay wuxuu yiri walaal aadan ku jecelahay gabadhaas qurux badan tahay inaan ku aroosaan rabaa ayada waxay tiri okay bas way baxeen waxay aadeen wiilkii boqortooyadiisii Snow White wiilkii loo aroosiyay nimankii gaagaabnaa oo 7 nin oo gaagaabnaa waa garab taagnaayeen wali maxaa la dhahaa ayagoo dhanna waxay ku wada noolaayeen boqortooyadaas ayagoo aad u faraxsan weligeed allahna kuma aysan noqon meeshii boqorada kale joogtay aabaheed marka si farxad leh ay ugu noolaayeen boqortooyadii cusbay sheekadii halkaas ku dhamaatay insha Allah sheekooyin badan idin soo gelinaya hadii aad sheekadan jeclaateen please subscribe and then comment hadaa haysatiin oo sheekooyin kale aad jeceshihiin yani sheekooyin aad jeceshiin hadii jiraan oo rabtaan inaan akhriyo oo Soomaali ku bedelo ii soo sheeg insha Allah. Assalaamu calaykum.